ورا صحن أبحاك حكسو تقول حاجات لكن هي هرجيسة ما دون ينقروا مركي ينقروا ويقوا حتى ما وحيحيق أمها أنا يدون يعني وحيصصبا يوم بيضعنا كون رياش إسحاق باتي أنا هلا ربط سومالي دي صومها يلا بري هلا ربط أول حاجة كيما دي وحنا يا ربط halkii SSC qaatimo dadka u dhashay haday ahaan jireen dad Soomaaliyeed ku soo hiirato calanka Soomaaliyeed jecel afka Soomaaliyeed jecel umada Soomaaliyeed jecel war hadda ma jeclin maan idin sheegaynaa ayahay danteedan raacana bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada waraysi gaar oo la yeelanayno abwaanilka case oo kamid ah abwaanada Soomaaliyeed gaar ahaan abwaanada SSC qaatimo abwaan soo dhaw maxaa cabdi saxaad baan ku salaamayaa waan dhawahay wata abwaan salaan kadib waxa jirtay heeso ay dhawaan soo qaadeen fanaaniin heer Hargeysa iyo abwaaniin ayaguna ka soo jeeda gobolada waqooyiga heestaasaad ka qayb qaadatay oo aad ku difaacisay qadiyadda Soomaaliyeed heestaas oo la dhahaa oo la yiraahdo aduun baa xiiqaye bal abwaan heesta waxaad ku keentay saad uga qayb qaadatay hindisaheeda bal looga warbix horta maxamedow aad baan ku salaamayaa saaxiib horta anu abwaan ma yihi nin dhalinyaro hal abuuran ahayo de marba waxay ka qabato maalmaluuqa laakiin abwaan ma yihi inta aan halka ku dhaafo horta anu Soomaaliyeed ma difaacin wax Soomaaliyeed ma jirto Soomaaliyeed oo Soomaaliyeed oo jirta ma jirto umada Soomaaliyeed nin waliba wuxuu isugu leeyahay buu haystaa nin waliba wuxuu isugu leeyahay buu maamushaa anu heesta waxaan kula hadlay nimanka reer Puntland eedeeyay oo waliba anu ma haysto ereyga waxa yixiga amxaare garow ku xintama waxinkaas aan ereyga xinka baan diiday marka hadda meesha waxa taala nimankan reer Hargeysa reer galbeedka way diideen Soomaalida Soomaha oo Soomaali ma rabaan oo de waxay leeyaan anu amxaar baanaha ayar hadaba dhulku ma guulee dadka guura idinku dhul goosan ma isaan oo taasi waa 10 sano ka soo baxaan bay ka tahay waad iska xiiqasaan dhul ma goosanasaan ee taga wardi xabashida aada oo waliba xabashida dhaafada doontaan ku calcali aada qaaba meelaha joogta reeshi qasaaq waxaan leeyahay hal fasaxo halaga saaro Soomaalinimada oo hal diro wadanka laga diro waa tahay abwaan guuro ee dadka guura doon ama wixii qaadi ka diyaarad qaada samsid doon baa qaaday gabigooda halaash ba qaaday ka saaro wadanka oo kaxeeya waa tahay abwaan waxa jirta abwaaninta Soomaaliyeed in ay ayagu had iyo jeer qadiyadda Soomaaliyeed difaacaan oo midnimada Soomaaliyeed difaacaan oo haysa ka tiriyaan صح maxaa keenay hadeerto abwaaninta jira inay dhahaan Soomaaliba waa ka baxnay oo Soomaalinimadii ay ku tuntaan oo hadeer adiga laftigaaga waxaad leedahay Muqdisho iyo dadka joogaba u yeelin maayo inay Soomaaliba jirta maxamed maxaa dhacay Soomaalidu xagee ka jirtaa Soomaalida midaysan ee heshiiska ahi xagee bay joogtaa maxaa dhacay magaalada Laascaanood baan ku sugannahay xalay toole waxa lagu qabtay kowdi luuliyo xilligii calankii Soomaaliyeed laga taagay koonfurta dalka Soomaaliya dalka gobolada waqooyina ay la midoobeen koonfurta Soomaaliya oo gumaysi laga xoroobay marka goobtii lagu qabtayna waynu fadhinaa hadeer waraysiga laftigeedan ku qaadayna waxaan leedahay Soomaaliya ma jirto maxaa dhacay halka laftigeedan su'aal ka siinay maxamed 1960kii baatir in xorowdi waa koow xornimadii aanu 1960kii qaadanay miyaan la inaga xadan ما ما حدنا وقت حل الحسين يا حردي يا حرة وديا كويس العين حرة على البريس قالوا ماملا يعني بلوغا هو مريرو وحمحي ترسا والعبريس قالوا ماملا وحودي بلا ماملا والله إلاليا وأمني قال الله سوقا ومحي هتو قف inaga mid maanta wax beesha caalamka qaladka ma oran karno oo wadan ma eedayn karno oo wadan lama dagaalami karno oo wax iskima celin karno oo Itoobiya maanta inta noo jirta taysay dadkeeda u maamulato wadankeeda u maamulato inagu uma maamulno oo waxaanu cunanayo waxaanu cabinayo waxaanu xidhanana la inoo keenaa wax aynu haysanaa haba yaraatay ma jirto
xornimadii 1960 la qaatay walaal way baaba'day dib baa haddana loo guuleystay haddana waynu guuleysanaa insha Allah markaynu xorowno Soomaali markay xorowdo maalin kale xorriyada aynu sameeysan yaa laga xoroobaya laga xoroobaya adduunka laga xoroobaya gaar laga xoroobaya walaal maamulaya mid kale aan ku sheego waa la midoobay Soomaali 1960 ku luuliyo midnimadii meeday waqooyi koonfur midoobay Soomaha soo kuma walaal kuwii galbeed ee waqooyi ay qaylinayaan ilaa midnimada Soomaali dadkii midoobay ee xorriyada qaatay ee midnimada ahaa way kala tageen xagee ku wada joogaan xagee ka kala tageen de xurgufta yar ee dhex taagan xurguf ma hadda xurguftaas waa wixii markii hore dhex yaalay Soomaaliya xildhibaanadii gobolada waqooyi soo kuwan bariis bay doontay kuwaas waxa ma hayaan way kala hagaajiyeen xagee bariis doonta war waxa kuwaas waxa ma hayaan xamar bariis ka cunaan ku xaggan u joogay ku xagga u joogay ku xagga u joogay ku xagga u joogay xamar bariis ka cunaan mid umad Soomaaliyeed tulinaya ma jiro abwaan ma la soo karaa adaaba fanaan abwaanintan ka daran ma aan ka daran kama darniyo awrada horta nimankan hadii Soomaalinimada diidan way saxan yihiin aayahooday ka tashteen Soomaalinimada maanta wax lagu ma qabo aayahooda ay ka tashteen ha tagaan laakiin dhulka ha dhaafaan dhulka inuu ka yeelmeen dhulka inaga hale inagoo xagee ka soo jeedo dhulka Soomaali Maxamed baale dhulka Soomaalidu way leedahay laakiin xor ma hadee eeg Soomaalidu xor ma aha laakiin dhulka uu iska ilaashan oo lagu maamulaya insha Allah waynu xoroobeena maalintii xorowno ee aan xornimada helno maalintaas in dhulka hagaajisanayna nooga taga waa tahay hadii aynu inta kaga tagno heestii aad samaysay abwaa fanaankaad u dhiibtay magaciisa adoo sheegaya iyo heestu siday ku tinto ciid wax nooga sheegaya okay no heestaasi nin dhalinyaro aan saaxiib nahay oo Mahan Cabdulla dhaho oo youtuber ah qaaday wanaga cusub wuxuu yiri saaxiib hees noocaas ay diyaari maadaama nimankaas heesta xaggan u socotay aniguna horta xamar uma hiilin laakiin waxaan u hiiliyay madaas Soomaaliyeed la eedaynayo aan waxba galabsan xamar waxba may galabsan ayuu umada joogtaa laakiin waxa umada kala dilaya ee umada isku diraya ee Soomaali kala tuuray war qabiil baa maanta loo wataa kuwa aan waliga maqal calan wataa ma aragnaa reer aan maanta calan lahayn ma jiro wallahi reer aan calan lahayn ma jiro waxay ku socotaa maalin dhow in hoosti fiican loo yeesho waxa soo dhanna waxa ka dambeeya nimanka xamar maamula nimanka xamar maamula oo u taliya deeqo Soomaaliya u taliya oran maayo xamar bay u taliyaane nimanka xamar u taliya ba ka dambeeyo in umada Soomaaliya saaw kala lunto taa marka laga yimaado inuu waxaanu reer si khaatumo reer si khaatumo waxaanu nahay niman hartiya hartinimo waxaanu ku weynay Soomaaliya kuma helno hartinimo waxaanu ku weynay hubba in sheegayaan wareeg maay hartinimo waxaanu ku weynay Soomaalinimo kuma helno war maamulka maanta inoo dhisan iyo awoodda iyo xurnimadan soo fadhinay laandheerayna dawladda inaga inoo dhisan cidina la wadaagin halka inoo ah ee maamulka si khaatumo umadeedu ay leedahay Soomaaliya ku keentay waa maya daaroodnimo kuma keenin Soomaalinimo kuma keenin hartinimo ku keenay runta la sheegayay hanuha awoodda iyo dawladnimada iyo faa'iidada hartinimada ku waayay kuma helayo Soomaalinimo waxaan hartinimo ku waayay oo walaalahan la midoobay ku waayay Soomaalinimo kuma helayo waay Xasan Sheekh Maxamuud shalay markan la sacaanood ka dagaalamayay adigu ma waxaan ma siyaasadda diidan tahay mise Soomaalinimo diidan tahay Soomaalinimadu waa Soomaalinimo dambaba jirtay maxaan diiday meeda jirtay wax jira la diiday Soomaalinimo ma jirtay ya Soomaaliyeed calankan la tuuro meelaha lagu tuuro waliba calanka saa qaato qof waliba calankiisa ha maamusho calanka buluugana in ay weel xiijiyay walaa caaw haduu calankaas caaw haduu hadli lahaa oo laga hadlin lahaa wuxuu oran lahaa in ay iska kiidaay ka saalcadii heesta tirisay waxa ku jirtay idinka u baaxiiqaye xaqiiqdu imeesheedi marka kuwa xagga hooyadii xarunta Soomaaliyeed heestii tidciyadeedii bal wax naga maqashii heesteereedu waxa kamid ahaa aduun baaxiiqay horta in baan ka taabanaya aduun baaxiiqaye xaqiiq ku imeeshin abid xamarna waa hooyadii xarunta Soomaaliyeed horta xamar waa hooyadii iyo xarunta Soomaaliyeed waa caasimadda ummadda Soomaaliyeed laakiin waa la qiimo tiray waa caasimadda ummadda Soomaaliyeed oo la qiimo tiray yeelkadeeda xamar waxa ma geysan laakiin dadka ku nool iyo dadka joogay dadka u taliyay iyo dadka aaday iyo dadka fadhiyay iyaga qaribay oo qasay walaaqay xamar waa la dulmiyay xamar laftigeeda qaylinaysa iga tagay oran lahaa askar leeysadee ummadda xamar joogtaa culays bay ku haysaa iyo dadka ku nooliba xamar waxay rabtaa inay leeysato
ha ka tagaano meelaha ka kala aadaan maclukuwa madaxda jooga iskaga taga xamar baa dhibsatay horta taa waanu yiri xamar waa xarunta Soomaaliyeed mid baa ku jirta aduun baa xaqiiq goy meeshii ay nimanka weligood goy maayo dhulka aan lale hadii xitaa xamar iyo Soomaali ka yeeshaan ka yeelanay go'aan taas waa mid waxa ku jirta in kale yana rasi galimayo aan umada xamar joogto iyo shacabkeeda ka hadlayo dad masaakiin iska jooga mid kale waxa ku jirta xanuun kugu baahay iyo xubiga gaalku hayay cuqdada ka xor oo xabeelaha faa ku yiri marka waxaan ka hadlayaa daan hirgarow waan hadlayaa aan digarow waa magaaladii ماشي خاطر ما نهاي ما ممكن بالله أنت وما ممكن يعيش الله ما أنا أو ما ممكن لا أوني كده بالله وحكي شيء لا ما يعني قلت إنه أنا كده دافع كورس أنت بالله نقول سومالي دول الحكومة ما هذا نمكن مركونين دول ينبوا أمرها سومها هي الرجيسة ما دون ينقروا مركين ينقروا يقوى حتى ما وحي يحيى أمها أنا يدون يعني وحي الصبا ينقوى الله نول إبريس كله الوردية يجي الله نول هم بدو عنا kuwaasay u naxariisanayaan oo u shaqaalaha bislaan qalbiga niyada ay ka tiginina laakiin ninka amxaarka laga xigsanay cadaawad Allah ayaa waaniga ma reer garow dhul lama wadaago oo dal ma wadaago oo afirsiin lama wadaago waxa kama dhaxeeyaan maxaa ka galay xagga garow kula xintay maxaa ka dhaxeeyay garow waxa lagu culaadinaya garow oo lagu fiictamaya ee lagu nacayo waa aniga ana la socda garow waa la marayaa waxa ku xigto oo kale aduun baa xiiqaye waxa ku jirta mayaha xuduud lama kala degay واحد يكون آخر قدم حسكي اعتراف ربو إنه حمر يالأبو حدود ما كان دقي واحد يكون آخر قدم هذا اعتراف ربطان أنا كل حين طيب ما يهدان يعني دير هالجرو ما كان الله حيليه هالجرو وأنا قاعد حد ينوت وحيليه هالجرو وحكليه أنا اعتراف كاجي ما هي حمر بويا لا يا حمر دي حمر تادي اسكا هذا هذا دون حمر حمر يقلب سنة دتك تشوجا هذا وشخصيات كل حلية مقعو حمر هذين مجال هذا حمر مساكين ده محل جربا حمر يدي وظلمان وعليل هيسا كوس كسياسي قال الله هذا وحس الشيخ محمود يدور وطلع هذا ودي واحد صديق قش وعدو يجوا حمر ما هي أوراني وحاتر هذا عدو يجوا رأيك دقيقة أنا حق قضي مني أنت أسيو ده أبوان هكذا هرتك كيسو قدومنو هاستا انتها صح هاس كلو حاترتا أي سوق قادين هبين دويدو حيث ولي بحديقة جيسو كاي قادين دad gobi kuma kala dhintaan ها dad gobi kuma kala dhintaan yaa gobi marka heesta xagee u wadaan dad gobi kuma kala dhintaan dhibaato ku soo dhacday waxa dhalay shaako oo yaa kula dhashay de haye yaa kula dhashay dadka kula dhashay waayo soo adiga yiri waxa iga xiga amxaar soo adiga amxaarka iga xigsaday yaa kula dhashay كذا محرك كي حسين سياري محن كلنا لبنا ولا بعضو كلا قورة صراحة وكان عايبة ولا قاتبة أنا كنا عايبة صحن كنا يروح يجي أمحار بصحن صوته أكاس منافق ما هي علوش يسوقها لماذا أبوان كاسا صحن كنا ما عايبة صحن ويروح يجي أمحار ده علوش يسي عداود ويها يوكها ورا صحن أمحار كحكسو تقول حاجة laakiin ka yiri dad gobi kuma kala dhintaan dhibaato ku soo dhacday waxa dhalay shaakuwi deeyo kula dhashay odaygiina dhalay migicii odaygii reer Sheekh Isxaaq iyo dhulbahantay dhalay migicii oo habartiina dhashay migiceed oo xaqaynu ku wada dhalanay oo maxaynu wada leenahay dhulka yar baa inaga dhaxeeyay hadii aadan si sharaf leh u joogin ka guur dhulku ma guuray dadka guuray hadii si sharaf leh wanaag u joogsana wanaag u joog marka heestaana jawaabteedii waa soo wadaa برامج كيسو جبين صح يعني وقدام بنتي فنانين Soomaaliyeed iyo abwaaniinta Soomaaliyeed gobolada SSC Khaatimo waxa ka dhashay abwaaniintii ugu faraha badnayd haday cali dhuux tahay hadii Allah u naxariistay Ismaaciil Mirad tahay hadii Allah u naxariistay ay tahay Nikolonje Jaamac Cilmi Kadiye Sayyid Maxamed Cabdulla Xasan waxayna kulli wada difaaci jireen Soomaalinimada صح هذا كوكا كاتم مادام أتكسر جد قبل الأساسي قاتمه أي تهي ماشى صومالي أي كحلي الدواء إذا كمان كلات مات محمد هلكا عنقلو هورتا أبوانينتي غير السي خاتم كسر تشيري لما تود أنتي لما الله ونحرس أنتي من الله العبرو ذا رجيم أنت أمريكا كجاي ما ضو وحي هيستين أمت صوماليات وحي هيستين دقها وحكم مقليا عندها وحكا عركيا مسكحنا وحكا قرنيا laakiin dadkan had yeerto dad dhigaha wax ka maqlayana maaha dad indhaha wax ka arkayana maaha waa dad indhala dad maskaxda aqliyadooda shaqeynaysa maaha waa dad maskaxdooda guurtay marka aniga horta aniga waxa igu kaliftay inaan dhaho iska kala taga waa taa dad xanuunsanaya de qof xanuunsanaya maxamedow inaan xidhno mooyaan de waji kala male ama in la daweeyo mid kale aan ka hadlo
nin horta ummadda Soomaaliyeed waa dad walaalahood deegaankaas ka wada dhaxeeya laakiin ummad Soomaaliyeed oo heshiis oo wada socotay dawlad Soomaaliyeed ma jirto Soomaali waa la gumaystaa yaa ku yiri waa xor Soomaali hal xoreeyo Soomaaliya Soomaalida hal xoreeyo Soomaalida waa la gumaystaa kuwa u taliyo horta intaydan Soomaalida u talin intayna aayahooda ka fidin horta Soomaalida waa la gumaystaa xoreeya wariya xamar yaa ilaaliya xamar soo caasimadu ummadda Soomaaliyeed maaha yaa ilaaliya ciidamada Soomaaliyeed ma haystaan Soomaaliya soo haysta marna isu sheegna Soomaaliya ma ilaalisa xamarow ummad kala ilaalisa guriga ka dhaxlisan wadama ayaan dhow xamar wadama laga dhex sameeynaya ayaan dhow xamar rag baa intay bolool goostaan bay oranayaan intan waa wadan nin Yurub ka yimi ama Ameerika ka yimi hadduu son goosan waliga hay waraysan haddaan sii noolaan maxaa cadrow oo inuu simaan xamar la goostay waliba Soomaali goosan meesha ajaaniba goosanaysa haddaba goosatay madaxweynaha Soomaaliya albaabada uusan gelin baa jira xamar madaxweynaha Soomaaliya albaabada uusan gelin baa jira xamar Soomaalida hal xoreeyo marka Soomaalida la xoreeyo isu keena marka xamar soo xoreysaan oo Soomaalida halka joogta soo xoreysaan isu keena mid kale jirta halkii SSC qaatimo dadka u dhashay haday ahaan jireen dad Soomaalidu ku soo hirato calanka Soomaaliyeed jecel afka Soomaaliyeed jecel umada Soomaaliyeed jecel war hadda ma jecelin ma ni sheegnaa ayahay danteedan raacana markay heshiiseen ee aad isu soo raacdaan ee aad isu soo xoreysaan ee aad Soomaalinimadiina soo aamintaan markaas aanu idin heshiinana hadda danteedan raacana hanagu mashquulina Soomaalinimada ay sheegaysaan cilka la aada inta soo hagaajinaysaa marka soo hagaajisaan isu keena كون رأسي أصحاب باتمينا هلا رضا سومالي دينا صوما ها يان لبري هلا رضا وأرادان كقاضي حقيقي أنت كقاضي ما ديار يترن دي حبشة الجينية أول حاجة كيما دي وحنا يا رضا العيون ما تقصف عن توالي يا كأنها واحد حاجة كيما دي هلا هرو وأراد هلا هرو كل كيدقيه هنا أنا عليه سيكو يا رتي يوم بدينا صومالية صومالي ذا يوم كل صومالية مية هرجيس مقالة الصومالية أنت ما يمسن تهادي السياسة دم بيرد دي ما يهورت ورما هي هذو هرجيس مقالة الصومالية تيسميها يمسنين ها وعاصمة برعنين مقالة الصومالية تيسميها يمسنين كون الصومالي ما هي تجاه طبعا الصومالي بالكين يا تطلع على صور الرجال والكين يا كوب بيلعبوا مالها عيون كل احتلال دقيقة دي الصومالي على كذا صارين حمر اسكو مش شقوي بالكين يا قار حقا مكان مكان هلا هرو مكان Soomaalidana hal xoreeyo walaal xor ma aha kood luuliyo xukuma jiraani markaynu xoroonayno maalin sameysanaanaay wabillahi tawfiiq